annagoo gudanayna fariintii nabigeena calayhi salaatu wasalaam qof baahan marka loo sheego dadka kale uu ku oran jiray ishfacu tu'jaru qofkaasi caawiya ajar baad ka heli doontaane waxa caawa fariinta aanu gudbinayna ay tahay aanu gudbinayna dadka muslimiinta guud ahaan dadka Soomaalida ah gaar ahaan hooyo kamid ah hooyooyinka degan magaalada Hargeysa oo haysta caruur agoona magaceedana la yiraahdo Zainab Sheekh Ibrahim oo la soo darsay xanuun culus ilaahay baynu caafimaad weydiinayna iyada iyo muslimiinta kaleba oo kansarka dhiigga ku dhaca dhakhaatiirtina ay yiraahdeen waa in dibadda loo qaado dhuuxa laga bedelo hantida ama hayntooduna aanay gaarsiisnayn amaba se aanay awood u lahayn inay dhakhtar dabadeed ay tagaan oo kharash iyo maal ay ku tagaan aanay haysan waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta ah meel kasto ay joogaan dadka Soomaalida ah rag iyo dumar guud iyo dabadba hooyada dhiban in la caawiyo waa sadaqada aynu ka bixinayno caafimaadkeena waa arin aynu ka dhigan karno sahay aakhiro waa sadaqada aynu u bixin karno waalidkeen waa caawinayno qof muslimada oo dhiban oo walaasheena ilaahay baa dhigay inal mu'minuuna ikhwa ay maxamed ba alayhi salatu wasalaam yiri al muslimu akhu al muslim waa sadaqad aynu rajaynayno in ilaahay maalka inoogu barakeeyo caafimaadka aqliga cibaadada iyo diinta iyo ubadka bay ilaahay inoogu xifdiyo kulli waxay ka muuqan doonaan nambarada loo diyaariyay wax lagu soo dirayaa shaashada ka muuqan doonaan waxaan leeyahay khayrkaasi aynu kala dheerayno adduunyada waa laga tagayaa qof waliba wuxuu amal wanaagsan sameeyo iyo wixii sadaqad uu la baxo ayuunba aakhira u raacaya ilaahay hayna waafajiyo arrinka aad baan inoogu dhiirigelinayaa dhammaanteenba waxaan leeyahay sanay maxamed calayhi salaatu wasalaam oo oran jiray ma naqasat sadaqatu min maal sadaqadu maalka xukuma dhinto oo ku barakooba ilaahay baa subhanahu wa ta'ala ku barakeynaya maxay ahayd inaan halkan igu timaadaan codkan aan duubo hadii ilaahay qadaro waxa la magacayga Zainab Ibrahim Cismaan maxay ahayd xanuunkaygu maxay ahayd waxa la igu yiri waxa ku haya kansalka dhiigga raaca dabeetana Itoobiya tagay saayigu soo tagay Soomaaliland way igu sheegtay Itoobiyana way soo xaqiijisay alxaal wuxuu gaaban xanuunkaas ka qabay waxa saweeyaan oo igu soo beeray yiraahdeen dhakhaatiirtii dawadan dawo Itoobiya ay siisaa dawadan oo ay daweero kaalmaatiya gabadhan waxay u baahan tahay dhakhtar dabadeedna qabataabad u baahan tahay yiraahdeen aniguna dhakhtar dabadeed ma kari karo ciyalkayguna waa caruur agoona iyo ma suurta galisay inaan dhakhtar dabadeed wateen tago waan iskaga hargala waan iskaga haran doo nafteedana waan ka saaray sidaasaan faraha kaga qaado in ilaahay halkaas ugu tasbiixsanayo qofku laba goor ma dhintay marun buu dhintay aan iska daa dabeeta dad bay igu dhiirigeliyay khayr Allah siiyay igu yiri walaalahaaga muslimiinta muxsiniinta u sheeg inama iyo dad maxay tahay adigu ehelahum bay iga naxay igu yiri arintaadan loo sheego dadka islaamka ah muslimiinta marka waxaan leeyahay dadka muxsiniinta walaalahay wixii ilaahay qadaray waa halkeeda laakiin waxaan leeyahay anigu waan idin baahanahay in ay caawisaan baan aad u dareemayaa waayo ininka waxba idinka maanta iyo waxba idin tari maaniga wixii taraya fadlan waxaan leeyahay ilaahay haydin naxariisto maxay ahayd xanuunada iyo waxa tibnisaan oran Allah idin kaga qaado xanuunka yahay la qaybsada isoo caawiya baan leeyahay walaalo xanuunkaas yahay fadlan khayr Allah idin siiyo qof kasta oo hawsheeda galan ilaahay hawshiisa ha galo khayr baan dhamaantiin idin rajaynayaa wixii ilaahay qadar waxaan haynaa ma dhacayaan qof walaasheen ah oo xanuunsanaysa oo ku dhacay xanuunka kansarka ah ee dhiigga raaca gabadhaas oo magaceeda la yiraahdo Zainab Ibrahim Cismaan oo caruur agoona haysata isla markaana qoys faqiira markii dhakhtar la geeyayna lagu yiri waxa loo baahan yahay in kansarka dhiigga laga daweeyo oo waxaana ku baxaysa lacag gaaraysa ilaa 70,000 ilaa 100,000 inta u dhaxaysa maadaama ay tahay qoys faqiira caruur agoonana haysato awood ay isku daweysan aanay lahayn waxa aanu muslimiinta meel ay joogaanba
ka codsanaynaa inay ku soo sadaqaystaan maalkooda ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo ay caafimaadkooda sadaqa ka bixinayaan iyadana u ah kaalmo caafimaad u ah dhammaan muslimiinta. waxaan leenahay maalka ilaahayna siiyey oo Allah subxaana wa tacaala ugu talagalay inaynu ku cibaadaysanno, zakada ku bixinno, sadaqadana ku bixinno, qaraabada ka xidhiidhinno, muslimiinta ducafada ee fuqarada iyo masaakiinta wax ka siinno. qof walba waxaad awoodi karto ku soo sadaqayso. waxaynu la joognaa Zainab Ibrahim Ismaaneere Zainab Tuur. Zainab waa hooyo haysata caruur agoona muddo sanad ku dhow 6 bilood u dambeysay. Zainab waxay la xanuunsanaysay nooc kansar ah oo ku dhaca dhiigga. dhakhaatiirtu waxay cadeeyeen inay u baahan tahay qof kale oo ugu deeqa dhuuxa in looga bedelo. arrintaasina dhaqaalaha waxay ku kacaysaa inta u dhaxaysa 70,000 ilaa 100,000 oo dollar. Zainab waxay u baahan tahay kaalmo islaameed mid ehel oo ay u baahan tahay dadka muslimiinta ah. waxaan ugu nimi gurigeedii saynu arrintaa u soo bandhigno. saas daraadeedna dadka islaamka waxaan ka codsanaynaa inay akoonnada shaashada ku qoran ay ugu soo diraan qof kasta uu xili karo. taasina waa waxa sii horumarsatay